saddexdii bilood markay dhamaatay email u diray waxaan ku yidhi waxaan jeclaan lahaa warqadaydii inaad ii soo dirto adoo mahadsan 2 laynun baan u qoray markiiba show farxad uu ii soo jawaabay tiri wuxuu yiri waatan kula soo hadashay imka hadeer dib u sabanaysaa ilaa waatan yara bugsatay sawiradaydii waxay gaana halka kulli Facebook iyo meelaha soo kaarka he's stalking me waan ogahay bay tiri I know he's stalking me oo meelaha soo iga daawadaa oo uu arkaa inaanan de urna lahayn waxay tiri markiiba fariin buu igu soo celiyay wuxuu yiri I miss you waan ku xiisay ku darsaday telefonkii waad blog baad saartay flower-radan ku soo diray ma ku soo gaadheen gabdhaha reception ka baan ku yiri qof flower dambo qofka ka socda haduu yimaado as a matter of fact flower ba aniga igu address karaysanay haduu yimaado qashinka ku dara waxay tiri flower qalbi jilicsan markaas uu yiri waan isku buuqsanaa dhibaatooyin badan baa ila soo darsay waan qoomameeyay sidaan ku galay waxaan jeclahay inaad saamaxdo ilaahay dartii saamax iska saamax reerkiina waxa malaa waa lay falay nahaago dhami fal iyo bilo horta Soomaalidu waxay falkii bilada ugu warwareegaan maxay naga siiya horta dad muslimnaba sidiisa uma dhaqano dad waaweyn ba maalin walba inta halka ku soo istaagano iyo waa lay falay oo kana lagu sameeyo fal iyo fal I am sick of it marmar waxaan siraahdaa waxa ku darsan dadka Soomaalida dad badan maxay nagu qaatay falkan iyo waxan qofka bini'aadamku uu khaldami karaa uu xumaan karaa uu dhibaatoobi karaa uu xanuunsan karaa waxa soo dhami waa wax kamida nolosha bini'aadamka it's part of the human condition wax la yiraahdo saboolnima kugu dhacaysa xanuun baa kugu dhacaya dhibaatooyin iyo geeri baa ku galaysa caajis baa kugu dhacaya waxyaabo badan baa marmarka qaarkood maalin aada iska le nolosha maalin asaa gaabaale haddii wax kaa yaris noqdaan maaha in lagu falay ya iska daaya dabeecadan khaldan iyo excuse-ka dad badan ee excuse bayba ka dhigtaanba wixiisana waayo nolosheeno dhan ba waxaad moodaa inaynu u samaysanahay inaynu wuxuun dusha ka saarno dad kale it's never me aniga marnaba maaha ilaa qarannimadii bay maraysaa dad kale dhakada laga saaray Ethiopia ka dambaysa Kenya ka dambaysa meesha caalamka ka dambaysa goormaynu inagu responsibility qaadanayna waa muhiim qofka bini'aadamka ah inuu responsibility isa saaro yiraahdo wixii iga khaldamay wixii iga xumaada waa amar alle iyo amar aan anigu ka dambeeyay labadaba way jiraan laakiin ka qof weyn baa tahay oo inta dhaska iska biisid move on waa la falay iyo waxa ku warwareegi waa runa falku wuu jiraa laakiin wax walba oo si ka noqda maaha because fal baa ka dambeeyay وين تسويدي سام حلو قف كستابة كوفلية ضد باكله قف كستوا كم حي ماذا ينفعي قف ولا جرن كرا قف competition كولا ترى قف وهرنا ولا شيء أنا أقول نمن كوذا فلاي نمن ناقو هذا فلاي وربع قف كيو هدو كاسي تشيدو أتصلد هاي سو تشيدسو لكن ده كل حرف ما يسني أنت يجوا يسكو وفلان بعضاً أدو على كل حال والله فلاي يحبك مر بس يدو حكوا تري وحن كويلو بيتري إيميل تامدري سكو حشر دوين بعد هاي نختار بعد هاي for God's sake nin dhakhtar baa tahay nin wax bartay baa tahay cilmi kuguma yara mid maadiye iyo mid diiniyan ba adaa xun adaa qof saqajaana oo dulmiile ah khaladaadkaaga qaado oo qiro aniga si waxba igama gelin hadeerto warqada haddaad ii soo dirsanay ii soo dir haddii kalena de anigu awalba mariin iyo masruuftoona kuguma qabine waan isa soo fasaqayaa no problem markaasuu iska baroortay maayo sidaa samaynin chance kale sii hal fursad oo kale fursad kale oo kale sii waxay soo xusuustay halkaas fursad kale sii hal mar iga qalle waxay soo xusuustay heestii Khadra Daahir iyo Axmed Cali galbada qaadi jireen oo oran jiray aad ceediyo inan yahay harkaageed ku laba cayn cashanul baweeyo إركسر شمبرو للي عبروا كدبادي سولولا عجهاو مهورا عيدي حدان عاوكويمي أذيبنا عنادو كحدكو سهيس أورن يدنو حترادا
calool nugulidaayey madigay cawaansaday haddaad ciida hoosiyo gashid meel cidhiidhiya ama ahi coliyo gulu war ma kaaga cararaan walee ciidan kuma tarowe waxabahay calaa calin markaan ciida jiibsaday adalayda ka caabe nafsigu wuu dhaxaayo kuma dhaafo tirde waanu sheegay ama soo dir 2 week baan ku siinayaa haddaan waayo emailka ku soo dir haddaan waayo inaad sida maaragtay la isu fasaqo wax dhib weyn ma jirto waayo waxa kugu qabaabay iska yar marka tan caruurteedii aniga dalxiis baanu aadnay waqti baanu iska soo yaro wada qaadanay markaas waxay tiri sawirradaydan soo geliyo Facebook anagoo meel jasiiradan iyo caruurteedii joogno isbaacsanayno waana naga qasnayno qurux badan oo mar meel lobster ku cunayno kaal arag ayaa waxay tiri like uu wada saaraa Facebook like alcawadiina ma fariimo igu qorqoran sawirada caruurteedu ma garanayso way tiri cid qofku yahay waan ba ka helayaa bay tiri waxaan rabaa farxadayda inuu arko sida ilaahay ii bugsiiyay ma aragtay ilaahay ii asturay waxay tiri fasaxayga anigoo ku jiro waqti fiican qaadanay waxay tiri oo meel biyaha qarkeeda iska fadhiya bay tiri oo surwaal jeans oo cadoon sidaa u laabtay xidhan iyo shaar cad oo qoraxda isu dhigayo kaale aragaana iga qasnayn bay tiri ayaa text message ii soo dhacay text message kiibaan eegay bay tiri waa from Dr. Bradley waxay tiri waa sawirku waa sawir la qaaday intaanu Syria tagin ka hor dhakhaatiirta cusbitaalkayga iyo nurseska cusbitaalka la tartamayay orod marathon baan u baxnay bay tiri markii marathonkii dhamaaday ayaan biyahaygii baan cabayay meel baan taagnaa biyahaygii baan cabayay isna wuu daawanayay show one of our friends gabadh nurse oo asxaabteeda kamid ah ayaa capture garaysay oo u dirtay sawirka isaga I don't know waxay aniga igu soo diri weeday malaa isaga yiri ha u diran miya ma aqaan siduu ii eegayay sidii si naxariis loo maaragtay saas oo kala ah ayuu ii yar eegayay maaragtay oo naxariis leh markaasuu hoosta wuxuu captionka wuxuu ku soo qoray bay tiri for the past year this picture has given me the hope to go on and sanadkii la soo dhaafay sawirkani wuxuu siiyay rajo aan ku sii noolaado ayuu hoosta ku sii qoray bay tiri waxay tiri markaasaan yaaba wow those are very powerful words waa hadallo aad u awood weyn Dr. Bradley muxuu saa u yiri muxuu uga jeeday talo